Lego TV isha wararka dalka iyo dibadda ku xirnow saacad waliba. Waagaaga daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka sahanka wararka markana taliyaha ciidamada difaaca deegaanada Yaaqbir Weyne iyo Lego ayaa faahfaahiyay hadal dhawaan ka soo yeeray taliyaha qaybta 60aad ee xukuumadda Soomaaliya isagoo ku eedeeyay in uu hubeynayo mid ka mid ah beelihii dhawaan ku diriray deegaano gobolka ka tirsan isagoo tilmaamay in markaasi uu sito shaar qabiil uusan wadanin shaarkii qaranka uu markaasi ku gumaadayo ciidamadana xaq u dirarka waa sida uu warka u dhigay taliye Abuukar Carab waraysi dhinacyo badan taabanaya ayaanu la yeeranay waxaana uu ku bilaabaya sida soo socota soo dhawow taliye Carab bal waxyaabaha aad nala soo xiriirtay iyo faahfaahinna si waa dhawahay marka hore 190 kaba maalintii idaacada warfaafinta Leega waxa jirtay waxyaalo badan oo iska badan oo labda dhibaato jirta amaade taliyaha qaybta xilmaad waa oo taliyaha Soomaaliyeed oo marna taliyaha dawladda ciidanka oo dawladda wada marka waxyaalo amarna ka fadhiyna afka ka soo baxday waayahay maxaad marka ka tabanaysaan taliyaha qaybta 60aad taliyaha qaybta 60aad waa taliyaha oo daliska dawladda laakiin marna laga yaabaa in oo qabiil loo doortay oo xilwaada Abu Siku qabiil oo qaab qabiil xil u qaatay waa laga yaabaa inuu oo macnaha oo qaab qabiileed ama dadjecel isla waa laga yaabaa laakiin in oo dawladda kullu oo dadkana dawladda xilna soo qabanay la dhaari oo ciidanka dalka xoogga Soomaaliya ah wuxuu soo bixiyay inuu yiraahdo ciidanka oo aqoon darrada oo cadow walba oo leh halala dagaalamo shacabimoodii qorada qaada la dagaalan saacada ka dib qaada kartaa ciidankaas garawaan ugu dhacay meesha laga qaada halala dagaalamo waxay dhigata batwaaniirta waa dagaalayna qofan ku aanaysiina wax walba aan ku caawinayna in ciidankaas meesha laga qaado hala sameeyo waxyaalo soo qoqoday waxa marka ciidan aan ka dhaxgalay ciidanka la qaadayo waayo ma ciidankiina ba ciidanka mawduuca qudarka oo shabaab la diraayo oo qabiil la diraayo oo shabaab u taagan in la diraan inay xaqooda dhacsan inay dalkooda dhacsan inay naftooda dafacdaan ciidan qarnay wuxuu ku dhigaa ciidan qabiil inuu ku dhigaa ciidan kale oo yiri ciidan dawladda dhiga inuu marka dawladda ku dhigo oo dawladda dhigo oo waa weyn oo yira oo dan oo yira nafta meesha laga qaado kumaar kara dawladda ku duush inuu yira waa nasiib darro madaas marka taas inay dawladda ay macnaha ay maqasho waxna ka qawayn waa dhibaato oo adduunka wuxuu badan marka waxa loo baahan wax laga qabto waxa dhacay dawladda u jeedaa madaxweynaha Maxamed Abdullahi Farmaajo u jeedaa taliyaha xoog Gudwaay Israel waa maqla waxyaalaha ku soo dhacay dadkiisa waxaana in arrintaas wax laga qabto hadii dawladda cadaalad ay jirto hadii oo xaq baraadeg la kala qaadayo waxyaalo badan jiro oo iska tawnayna ilaa hadda oo idoo muuqato wax laga qaban aan u jeedin waa gartay marka adiga hadalkaasi yaa ku xaqiijiyay arrintaasi aad sheegayso in sidaas ay dhacday maxaa cadeymo ah oo aad nala wadaagi kartaa taliye waa xaqiiqo arrintaas way oo hadda macnaha maskaxda amruhu wax maqlaaya arrintaas way ku dhacday oo waa la maqlay oo jiraba markaas oo inta isbay oo meeshii joogay ayaa shirkaas ilaa ay meesh ku dhacday saraakiil kamid oo asagta xukuumadda waajibiyeen anagu maqaadin dagaal maadaama dagaalku ku qaadaynin hadda wuxuu yiri hadii dagaalku qaadayna hadda ruqsay waa yiri oo waa ruqsayna adiga kuma naqaan waa isla gaareen marka waxyaabo jira qabiil badan oo dadka haysata oo aan laga dhacinaynin nin oo wasiir ama xildhibaan oo qabiil macnaha oo soo doortay ama uu loo doortay inay macnaha arrintaas waa ka filin laakiin nin bilisada dawladda haysta oo taliyaha qaybta xilmaad inuu arrintaas yiraa mana kama filaynin mana qaadanayna mana qaadan doono waxaan rabnaa in arrintaas dawladda dhexe Maxamed Abdullahi Farmaajo ilaa taliyaha xoogga مسارح حتى على قائنه وجارته تتوكله إنه وحكة قفته وحن كرمنا أستوى إنه ورثة وحنا وقفته أيا
ayaan loo taaganahay ayaa deerun anigu qabiil qor uma qaadanin dad dalkooda naftooda maalkooda dhacsanaanahay anigu la dirirka ciidamada waxaan nahay oo macawisliida waxaan dhacsanaa dalkaayna waxaan dhacsanaa naftaayna adigu anigu qabiil qor uma qaadinin laakiin qor waxaan u qaadin niman shabaab liida oo wadaa ku jiro islaamka dhiiga banaystay dhinaca shabaab asaga dhacaya inuu ninkii dowladda lahayo dilifka dowladda inuu afkaas yidhaaha dowladdan ay ku fiirsan ay ka dabalata waana siib darra waxaan rabnaa arrintaas inay dowladda wax looga qabata waa gartay marka inta hadalkaasi uusan ku dhawaaqeen ama markuu ku dhawaaqa kadibba maadaama adigu aad tahay taliyaha ciidankani wax xiriir ah ma idinla soo sameeyey adiga iyo maamulkiinaba maya marna waxa taliyaha qaybta lixmaad waa filayni wuxuu nahay taliyaha oo qaybta lixmaad inuu noo imaadayo inuu waxaan haysta iyo dhibaatada meesha lagu hayo inuu nagala shiraayo aan u mudayni laakiin uma malaynayni inuu anuga oo cadow nagelinaayo inuu ilaa badan leeyahay hala weeraro meesha laga qaado hala weeraro hala dhame inuu leeyahay uma malaynaynin maadaama intaasoo soobi inuu qaladaas galay way caddahay oo wax taa saara maaha marka ciddaanka idha daboolata iyo ciddaa idhada ay haysa ayda bay u taallaa laakiin anigu wuxuu noohay markaas eragaas intaas ka hor nin ilamdiraada qaybta lixmaad taliyaha qaybta isnoo ahay laakiin hadda hadalkaas soo baxay wuxuu noqday qabiil ama ilaahu ku leeyahay dowladdan aan macnaha aamudeynin manaasibka ay leedahay iyuu noqday marka taas ayaa dowladda aanu diraa beesha caalamka dowladda dhexe taliyaha xoogo waa gartay gabagabadii marka taliya carab inta aadan fariintan dirin ka hor ma samaysan wax dadaalaha ilan waxaa jira saraakiil ciidan oo ku sugan qeybo ka mid ah shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiin markaasi hoostaga dowladda dhexe iyo kan koonfur galbeedba anigu dowladda koonfur galbeed macnaha waa ninka noogu horeeya oo ka imaadayba asaga waa taliyaha qaybta lixmaad waa dowladda dhexe laakiin wuxuu kusoo duulay baydhabo koonfur galbeed ku imaaday laakiin amarkiisa amar ku shaqeynaa dowladda koonfur galbeed minka dowladda dhexe amar ku shaqeynaa mu wataba noocooddas waa hadlaa markaad aragtay iyo markaa wararka soo fulay ereyda kasoo fulaa dhegeysata waxay tahay saraakiil waa la hadalnay oo dowladda dhexe shabeello saraakiisha waa la hadalnay xiriir waa wada samaynay waxba ka sheega mayna dad isku celi waa nahay dad ilamdiraada isog waa nahay de qof walba dhibaatada haysa qof ilamdira qof ka caabin kara oo isku imaan karaa nahay waxba kama sheegna laakiin taliyaha qaybta intaasoo suubi maadaama taliyaha qaybta uu lixmaad uu yahay ilamdaa diliiska dowladda haysta hadduu diliiska mid isku gumaada ama mid waxaa ilamdaa lagu dhibaatay hadda isku qaatay waxay taxtaari kartaa dowladda anugu waxaan ka samayn kara lama hayo laakiin aqabad ana haysta intaasaa kamid intaasaan isu gudbin dowladda dhexe waaya marka haddii dhinac shabaab aad kala dagaalamaysaan dhinacii kale rajada dowladda aad sugayseenna sida hadda aad sheegtay ay xaaladu tahay marka rajo intee leeg ayaad qabtaan oo ah in aad hawshan halganka aad sii wadaan wallahi rajada waxay tahay anugu dowladda dhan waxba ka sheegi mayno dowladda oo macnaha kahor baasan ama aqabad kala taagan dowladda waa dowladdan shacabkeeda baa nahay shabaabna waa nima ilamda qabaarki oo la dagaalamo haddaba la dagaalamo hayno oo dhac iyo barakac dad ku soogay oo haddaba intaasoo hati qabo haddana oo dad ku dhex maqan haddana howlgal lagu haayo meel allaa meesha jooga lagu daba tagaayo midda kale oo dowladda xaggeeda taliyaha qaybta arrinkaas kasoo fulay marka waxaa dadaal qabna waa dadaalaynaa waxaa la dagaalam karo waa la dagaalagina dagaal qabiil anigu qor uma qaadanin dagaal qabiil qor uma qaadanin walaal inaad diyaar uma nihin naftaan iyo maalkaayna ina difaacna dalkaana diyaar unahay waxaan uu soo duulay inaan iska difaacna diyaar unahay wax alla waxaan uu soo duulay inaan iska difaacna diyaar unahay dadaalkana waa wada doonaa oo lamdira oo al-shabaab xaggeeda waa wada doonaa dagaal qabiil qor uma qaadanin laakiin cidda alla cidda lagu soo duusho oo meesha joogna lagu soo weerad inaan iska dhicina ayaan diyaar unahay howlgalka kale oo shabaabna waa wadnaa meel alla meesha ay joogaan anigu waa wadaba government sida yidhaah waa gartay hadda waase deegaanka yaaq berweyne iyo howlgalladii aad ammaanka ku adkeynayseen bal adoo soo koobaya wallahi deegaanka yaaq berweyne alxamdulilah anigu baa difaaca ugu jirno
deegaankaas iyo nawaaxidiisa anigu hadda maamulno intaas ka badanna waa maamulo doonaa waana ku duri doonaa inaan maamulno inaan nidaamka intaas ka qabsanno waa ku rajo weynahay hadduu rabbi ogolaada marka wax hadda oo dhibaatada ugu badan oo dawladda aan macnaha uga caawinay waxay tahay dhinaca waa cadowgaasaan nahayo aan nidaamda howlgal aan ku haynaa aan geedbixiyo haynaa dhinaca kale dawladdan haddii noocaas nagu soo yeerta waxaan qaadin maahan waxaan qaadan doona maahan dhinaca oo marka oon howlgalka u hayna waa dhinaca shabaab awoodda kule meeshaan saari doonaa meeshaan ay ku dhamaan doontaa waana ka dabagala doonaa inaan geed bixino waddanka aan xuriysanahay